kudhawaad 4 maalin oo ka go'na internetka koonfurta ee bartamaha Soomaaliya waxa dib loo saxay ciladii ku timid internetka sida ay sheegeen maamulka guud ee shirkadda Hormuud Telecom Soomaaliya madaxa fulinta shirkadda Hormuud Telecom Cabdikariin Maxamed Kaariye oo maanta shir jiraayad warbaahinta ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay ciladii qabsatay internetka kaas oo haatan lagu guuleystay in la xaliyo Kaariye waxa xusay in maqnaashaha internetka uu daba socday cilad ku timid qadka 26 bishii Juun ee sanadkan inkastoo si buuxda uu dib u soo laabtay internetka ciladaasi hadda ka hor dhowr jeer ayay soo laabatay markii ugu horeysay oo la arkana waxay ahayd bishii Juun 2017 markaasi oo 20 cisho internetku maqnaa runtii waxa xusid mudan muddadaasi shirkadda Hormuud Telecom waxay ahayd kibinigii back-up-ka ummadda u sameeyay oo kaliya ee back-up-ka sameeyay ummaduna ka faa'iiday sidaasna adeegyada shirkaddu ay ummadda ay maaragtay back-up-ka u haysay runtiina laga faa'iiday ciladan hadda dhacday waxay daba socotay ciladii 26 Juun dhacday daba socotay sidoo kale Cabdikariin Maxamed Kaariye wuxuu shaaciyay in shirkadda Hormuud Telecom uu meel gabagabaha u marayo keenista xarig kale oo internet fiber optic ah si loo xoojiyo adeegyada ay ugu baahan yihiin bulshada waxaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan macaamiisheena sharafta leh aan u ballan qaadaynaa uguna bishaareynaa in shirkadda Hormuud ay insha Allah keeni doonto fiber optic xarig ah fiber optic aan isleenahay ama xarigaas oo ku wajira ku soo biiri doona insha Allah sidaas insha Allah aan rajeynayno sidii aad shirkadda uga barateen adeeg wanaagsan oo tayo leh in xarigaasi xarkaha hadda jira ku soo biiri doono sidoo kale waxa xusid mudan xarigan Deer One in kambaniga Hormuud Telecom uu qayb ku leeyahay isla markaasna uu maal gashaday xarigaasi cilad ku timaada internetka ayaa soo bilaabatay bartamihii sanadkii 2017 iyadoo lagu guuleystay haatan in xal guud rasmi ah looga gaaray